Abusho, السلام عليكم. maanta waa maalin sabti ah meel kasta aad joogtaan soo dhawaada. Waa qolkii RKX oo maanta in la wadaagaya saddexda qodob oo Soomaalida Sweden degan ee aad iyo aad uga dameysa Soomaalida kale oo qurbaha joogta hadday tahay North America iyo hadday tahay Yurubta kale. Saddexdii qodob oo ay Soomaalida Sweden joogta uga dameyso dadka kale waxa weeye anaa idin sheegaya soo dhawaada waa sida tan soo socota. Ta koowaad waxa weeye qaybta Soomaalida oo rag iyo dumar isugu jira oo ka noqda inay siyaasiyiinta Sweden ka qayb noqdaan oo siyaasadda waddanka Sweden galaan oo aan lahayn aragti dheeraad oo politics siyaasadda waddanka ah oo ku xirnibaya markii xusbigii oo ay ka mid noqdaan xusbiga ay ka mid noqdaan doorasho gelaya ama tan dowladda weyn doorasho loo gelaya waxay cod ku raadsanayaan families reer maqalniq waxa uu codeeya ujeedada dhan ay saa u yeemeynayaan waxa weeye iyagoon vision dheer ama aragti dheer siyaasadda waddanka ka lahayn oo u danaynaysa Soomaalida iyo meel kasta joogta ee wuxuu doonayaa in la yiraahdo gudoomiye ama xildhibaan iyo waxyaabo noocaasa waxay siyaasadoodii dhan waxay ku soo xireen family reer hebel oo codeeya guriga kugu soo garaacayaan kale iyo codeey waa meel hoose weeye sababtaasaana keenaysa inaanay horumar dheeraada ka gaarin. Tan labaad waxa weeye Soomaalida Sweden joogta oo haba yaraatee aan lahayn wax sir ay leedahay haba yaraatee ma jirto. wax haddii aad adiga iyo dhowr qof oo kale aad isu tagtaan oo ka hadashaan arrimo ku saabsan sidee baynu Soomaalida wax u qabanaa caruuraha see loo galaa hawluhu see yihiin maxaa xaafadda u wanaagsan maxaa inaga magaalada inoo wanaagsan 3 saacadood ka bacdi 4 ama 5 qof baa ku soo wada hadlay 3 saacadood ka bacdi xaafadda deriskaaga oo cadaanka ama dhagcasta ama caleenta ama kurdida way ogyihiin marka Soomaalidu sir ma leh marka shame on you siriyaasha. qodobka saddexaad waxa weeye Soomaalidan oo gebigeeduba waxay ku dhammaatay waxa la yiraahdo qabiil reer maqalniq wax baan ahay reer dhagxaan baan ahay oo bal ilaah baan in ku dhaarshay waxa Sweden ka dhacay nin Soomaaliya baa dhintay meydkii oo yaalba waxa yiraahdeen reerkii uu reer maqalniq wax la ahaa waxay yiraahdeen Soomaaliya soo hortaagan waxay yiraahdeen annagu waan isku filanahay haddaan reer maqalniq waxnaayo meydka cidna uma kama baahnin inuu la yimaado walaa xawla walaa quwwata illaa billah. kuwa waxaan u sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhalatay oo wax baratay oo la rabtay in adduunka la jaan qaado faraha ka qaada dhalinyaro danihiina garta reer maqal wax meelna kuma geenayo marka dantiina garta wayna kaas waxaan reer maqal meel alla wuxuu ku taraayo iyo wuxuu ka sidayna midna ma jirto adiga keliga waaye marka naso kuwaasna waxaan leenahay shame on you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.